maalin wanaagsan Ramadaan Kariim daawadayaasha qiimaha leh ku soo dhawaada barnaamijka maanta ciyaaraha maxaa ka cusub fadlan hadda tahay saaxiib nagu cusub channelkiiga subscribe dheh like share iyo comment kama marna aynu ku bilownay daaqada kala wareega ciyaartoyda muddo bil ayaa ka hadhay waqtiga uu furmayo suuqa iibka ciyaartoyda xagaagan oo ku beegan horaanta bisha June laakiin xanuunka coronavirus ayaa laga yaabaa in sanadkan uu isbedel ku keeno inkastoo hadda xiran yahay suuqa aynu weli furmin waxa kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ee kala jeedanaya laacibiinta heshiisyadooda dhamaanayaan oo sida bilaash ay ku baxaya iyo kuwa kale oo ay ku horayaan lacag badan si ay isugu xoojiyaan xilli ciyaareedka dambe aynu ku bilownay Liverpool ayaa u sheegtay wakiilada Tommy Werner inay u baahan tahay inay helaan waqti badan ay ku go'aan kaga gaadho inay dalab rasmi ah kaga gudbiyaan 24 sano jirkan weerarka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig maadaama ay waqtigan sugayaan inay arkaan saameynta coronavirus ku yeelan doono suuqa iibka xagaagan sida ay warisay Guardian. Inter Milan ayaa diyaarinaysa qorshe ay doonayso in RB Leipzig kaga soo qaadato wariyahanka reer Germany ee Timo Werner iyadoo sidoo kale isku diyaarinaysa lacag iyo Valentino Lazaro oo 24 sano jir ama uga maqan kooxda Newcastle United sida ay warisay Tutto Sport ee ka soo baxda dalka Talyaaniga. Real Madrid waxay diyaarinaysaa dalab ay ka hor dhigto Manchester United ay ku doonaysay inay kala soo saxiixato laacibka qadka dhexe reer France ee Paul Pogba oo 27 sano jir ah sidii warisay Mundo Deportivo. Real Madrid waxa kale raadinaysaa laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Rennes Eduardo Camavinga oo 17 sano jir ah sidoo kale ay doonaysaa kooxda Manchester United sidii warisay Dayesa 22 sano jirka João Paulo qadka dhexe uga ciyaara ee Igor Gomes ayaa bartilmaameed u noqday kooxda camaliqada Spain ee Real Madrid laakiin naadigiisa ayuuna weli gaarin dalab sida loo sheegay Barcelona. Xavi Ajax ayaa sidoo kale xiiseynaya laacibkan reer Brazil sida ay warisay goal.com. qadka dhexe Atletico Madrid ee Thomas Partey oo 26 sano jir ah ayaa cadeeyay inuu doonayo inuu ka tago Arsenal waxaana la filayaa in labada kooxood isku bedeshaan isaga iyo Alexander Lacazette sida ay warisay Telegraph. kooxda reer Turkiya ee Fenerbahce ayaa lagu soo waramayaa inay ka shaqeynayso heshiis si ay la soo saxiixato qadka dhexe kooxda Arsenal Mustafa Mohamed Ozil oo daadiisu tahay 31 sano jir inta aanu heshiiskiisa hore dhamaan ayay labada kooxood heshiis dhameystiri doonaan sida ay warisay Dazan. xidiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa ka go'an tahay inuu dib ugu laabto kooxdiisa hore ee Barcelona ay ku dhashay garoonka Camp Nou oo uu ka tago kooxda Paris Saint-Germain waxaana la rumaysan yahay in 28 sano jirkan uu ku faraxsan yahay inuu 50% mushaarkiisa dhimo si uu ugu laabto dalka Spain sida ay warisay Mundo Deportivo. kooxda kubadda cagta Roma ayaa diyaar u ah inay u dhaqaaqdo daafaca kooxda Barcelona Jean-Claire Todibo haddii heshiiska joogtada laga yeeli doonin Chris Smalling sida ay qortay Corriere dello Sport ee ka soo baxda dalka Talyaaniga. kooxda ka dhigan Serie A ayaa isha ku haysa inay iska iibsato daafaca dhexe oo amaah kaga soo qaateen kooxda Manchester United xagaagii hore laakiin waxaa laga yaabaa inay ku qasbaan inay meel kale ka raadsadaan daaqada soo socda. Smalling ayaa xagaagii hore Roma amaah kaga soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ku dhashay garoonka Old Trafford. Arsenal ayaa isku dayi doonta inay iska iibiso Mas'uud Mustafa Ozil marka uu suuqa kala iibsiga soo galo isku biirto loolanka loogu jiro Jack Grealish iyo James Maddison ayuu yiri Kevin Campbell weeraryahankii hore ee Gunners ayaa u sheegay Metro waxaa jiray hadal ah aad looga helo Jack Grealish ama James Maddison ragga noocaas way horumarinaysaa kooxda Arsenal ayuu yiri halyeeyii hore kooxda Manchester waa kooxda Arsenal ee Kevin Campbell. Manchester United ayaa u baahan inay go'aan ka gaarto haddii Dean Henderson loo ogolaan doono inuu sii joogo Sheffield United oo haatan ka tirsan yahay wixii ka dambeeya bisha June 30 sida ay qortay Dazan. taasi waa markii heshiiska amaahda uu haatan ku eegay inuu dhamaado laakiin xilli ciyaareedka Premier League ayaa laga yaabaa inaysan ka dhamaysanin dhibca isla markaana Red Devils haysato fursad ay ku soo celiso goolahayaha aadka loogu qiimeeyo inuu dib loogu soo celiyo baahiyahooda. laacibka qadka dhexe ee kooxda Barcelona ee Arturo Vidal ayaa lagu soo warinayaa in albaabada uu furay inuu ka tago garoonka Camp Nou xagaagan 32 sano jirkan ayaa ku dhibaatooday inuu ku bilowdo safka hore qaybtii ugu weyn xilli ciyaareedka 2019-2020 laakiin si kastaba ha ahaatee 31 sano jirkan ayaa u saftay 31 kulan
tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan. Si kastaba ha noqotee Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay raadinayso inay iska iibiso dhowr ciyaartooy si lacag ugu aruuriso waryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez oo ay doonayaan saxiixiisa, waxaana sida laga soo xigtay jasiiradda Marca ee kasoo baxda dalka Spain Fidal uu diyaar u yahay inuu ka tago garoonka Camp Nou oo ku dhashay kooxda Barcelona. Warbixintan ayaa sheegaysa in ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Chile inuusan ka gaabsoon doonin dalabyada kaga imaanaya haddii uu go'aansado inuu raadsado tartan cusub, iyadoo Newcastle United, Inter Milan iyo Juventus dhammaantood lagu qiimeeyay inay xiiseynayaan ciyaaryahanka qadka dhexe. qandaraaska haatan Fidal ee garoonka Camp Nou ayaa dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda, ana xilliga Real Chile uu dhaliyay 9 gool 58 kulan oo u saftay tan iyo markii uu Barcelona uga soo biiray kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka ka dhisan sanadkii 2018. sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lambarada ka bedelaysa afar ka mid ah xidigeeda oo ku jira Scott McTominay. xidiga ay Manchester United isbedel ku sameyn doonta lambaradooda ay xiran doonaan ayaa xilli ciyaareedka dambe la kowsan doonaa, iyadoo dhabarka ku sid lambara aan ahayn kuwii hore oo loo yaqaanay. kooxda Karimisa garoonka Old Trafford ayaa caan ku ah inay xidigeeda marka hore ku tijaabiso lambarahan siday hore ugu sameysay Roy Keane bilowga waayihiisa kooxda, iyadoo loo xiray lambarka caanka ee halyeeyada kooxaha intooda badan soo xirteen ee lambarka 7 ama lambar 7. Keane ayaa sidaasi kaga mid noqday xidigaha Manchester United oo dhabarkooda soo muuqday lambarka caanka ee lambarka 7 oo ay caan ku ahayeen xidigaha sida George Best, Brian Robertson, Eric Cantona, Raul iyo Cristiano Ronaldo. xidigii hore xulka qaranka England ee David Beckham ayaa isagana loo xiray lambarka 16aad, waxaana laga bedelay xilli dambe oo ay ku beegnay sanadkii 1997 markii Eric Cantona ka baxay garoonka Old Trafford ee ku dhashay kooxda Manchester United. macallin Jose Mourinho markii uu joogay kooxda Manchester United waxay sidoo kale isbedel ku sameysay qaar ka mid ah lambarada xidigeeda, waxaana lambarka 3aad loo xiray Eric Bailly iyadoo lambarka 6aad loo baneeyay Paul Pogba. haatan Manchester United waxaa u bannaan inay haystaan lambarada kala 11, 19, 27, 30 iyo 34, waxaana isbedel ku sameyn doonaan lambarada afar ka mid ah xidigeeda. sida warbixinada lagu sheegay, macallin Ole Gunnar Solskjaer waxa uu doonayaa in Mason Greenwood iyo Angel Gomez oo hadda qaata lambarada 28 iyo 26aad u soo gaabiya lambaradooda. sidoo kale xidigaha lambarada laga bedelayo waxaa ka mid noqon doona Brett Williams kaasoo kasoo dalacay dahyarta kooxda. dhinaca kale xidiga khadka dhexe Scott McTominay ayaa haatan Manchester United u qaatay lambarka 39aad, yaa la siin doonaa lambarka ee ka dhaxleen halyeeyada kooxda Michael Carrick ee Roy Keane oo ah 16. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa lambarkan 16aad kooxaha ugu qaadanayay daafaca Marcus Rojo, kaasoo haatan amaah ugu maqan dalkiisa Argentina. waxaa la soo bandhigay magacyada 6 ciyaaryahan ee ka ciyaara qadka dhexe kuwaas oo cagaagan bartilmaameed u ah kooxda kubadda cagta Arsenal. saameynta buuxda ee coronavirus ku yeelan doona suuqa kala iibsiga ayaa weli loo arki doonaa, laakiin waxaa la filayaa inuu noqdo suuqa kala iibsiga aad u degan xagaagan marka loo eego sidii aanu u baranay sanadihii la soo dhaafay. si kastaba ha noqotee wararka xanta ayaa weli sii socda oo naadiyada ayaa sii wadanaya taxgelinta fursadaha lagu burburinayo kooxda ka hor xilli ciyaareedka 2020-2021. Arsenal ayaa kooxda ugu cadcad oo ay u baahan tahay inay horumariso safkeeda hore inta ugu badan meel marka loo eego farqiga u dhexeeya heerka la filayay in halka haatan ku eegyihiin booska 9aad kala sareynta ee horyaalka English Premier League ay ku jiraan, waxayna u muuqataa inay mar kale seegayaan UEFA Champions League. tababare Mikel Arteta ayaa lagu soo waramayaa inuu u aqoonsaday booska qadka dhexe ee burburinta inuu yahay mudnaanta koowaad inta lagu guda jiro suuqa soo socda, iyadoo xidiga amaahda ah Dani Ceballos uu haatan ku eegyahay inuu ku laaban doono kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, isla markaana su'aal la gelinayo mustaqbalka Lucas Torreira ee Granit Xhaka. iyadoo taasi maskaxda lagu hayo, shabakada Sports Mall waxay soo bandhigtay 6 ciyaaryahan oo ka ciyaara qadka dhexe ay Gunners ka heli karto, isla markaana ay ka fiirsanayso inay u dhaqaaqdo marka uu furmo suuqa xagaagan. Thomas Partey oo Atletico Madrid, Wilfred Ndidi oo Leicester City, Calvin Phillips oo Leeds United,
Matthew Long Gustavo Newcastle United Michael San Jose Atletico Bilbao iyo Macri Roca oo Isbaanyool ah ayaa ka mid ah 6 ciyaartoy oo la filayay inay kusoo biiraan garoonka Emirates Stadium ee ku dheesho kooxda Arsenal. Kubadsameeyaha Atletico Madrid ee Thomas Partey ayaa go'aan ka gaaray mustaqbalkiisa Atletico Madrid waxaana si cad ugu wargeliyay asxaabtiisa inuu u sheegay halka ka ciyaari doono xil ciyaareedka soo socda. Laacibka reer Ghana ayaa la xiriirinayay inuu Arsenal ka tagi doono iyadoo tababare Mikel Arteta uu u baahan yahay xidig ku wanaagsan kubadsameynta iyo hab difaacashada ka caawin kara kooxdiisa inuu dib u noqoto heerkii hore isla markaana ay ka soo qayb gasho UEFA Champions League xil ciyaareedka dambe. Heshiiska uu Thomas Partey kula jiro Atletico Madrid ayaa lagu burburin karayaa lacag dhan 43 milyan balse dhibaatada haysata Arteta ayaa toddobaadkii hore inuu agaasimaha kubadda cagta Arsenal uu ku wargeliyay in dhaqaale xumo kooxda ku fool saartay kadib aan la ogolaan doonin in la siiyo lacag uu ku ciyaartoy cusub kusoo iibsada xagaagan. Sidaas oo ay tahay Arteta wuxuu haddana haystaa sabab uu ku farxo kadib markii Thomas Partey go'aan ka gaaray kooxdiisa isla markaana uu sheegay in aanu hoos u dhigi doonin haddii Arsenal ka gudbiso dalab uu ku wargeegayo. Sida uu qoray wargeyska Telegraph 26 sano jirkan ayaa u sheegay asxaabtiisa inuu doonayo inuu ka tago Arsenal kuna qanacsan yahay si fiican inuu jeclaan lahaa inuu ku biiro horyaalka Premier League. Wargeyska waxaa intaasi ku daray in Arsenal isku dayi doonto in heshiiska laacibkan ay adeegsan doonto weeraryahankeeda Alexander Lacazette ee ku fasaxi doonto in sida ay wari arrintan ayaa dhammaan doonta ciyaartoyda isweydaarsi. Arteta ayaa waxa uu doonayaa in Alexander Lacazette oo kooxda ku diro haddii uu helayo ciyaartoy boos kale ka dheela uu ku soo bedesho waxaana la rumaysan yahay in da'yarka Eddie Nketiah oo xil ciyaareedka noqon karaya midka qaban kara shaqooyinka weerarka reer Faransa mustaqbalkana waxa ka sii fiican u keeni kara ciyaaryahanada ka hayaami doona garoonka Emirates Stadium sida Alexander Lacazette iyo Pierre-Emerick Aubameyang.